dabiiciyo dalku hodanku yahay ayaa looga taliyahay daayinkood baan kurayn khayraad dabiiciyo dalku hodanku yahay ayaa looga taliyahay uruduna wadani dadkareer Itoobiya dawladooda jecelo ciidooda darayada uruduna wadani dadkareer Itoobiya dawladooda jecelo ciidooda darayada رحمنا وديدو دميران سنلو دنيا بارو جيرو لابد هايويا رحمنا وديدو دميران سنلو دنيا بارو جيرو لابد هايويا حتى كنا كريمو توجه واسيدا بسم الله الرحمن الرحيم ولا وحلي هذا أحمد عبد الله محمد كونوا مقعدير أحمد جير وحنا جفنا كاونتي وجير وكينيا ماركتي وحنا لصعدا ودي أدو بلارسن وإلى لحظة قف جاريو وكصعدا كينيا وماركت مدح فربضن أيا السعوديان أوديال فربضن وقويسس فربضن أو الصوماليات كصعدان ورير كينيا أو رير وقوي بريء مبدأ وصولنا وحاويان إن أن أسوق بينه وبركة بيشة أو دقودية بلد حد كهر أوسية مدحوينيه هراء كينيا هورو كينياتا سنة كلابكون إسرائيلي تبانكي وبلد مركي اللي بحي كدب مدو كدب أي مدائي إن هذا كهر فرصة الله لنا أسأل وشو بريجيو أيان أو إيماني إن ماركتي أن كوريجينو وبركة ساسا وشو بغني جيجيو يعني مقالة دي جيجيو محاكو عركتين مالك إن سي قيمة بدأ أنا أقول شو دويي رونتي دولة deegaanka Soomaaliyeed oo hogaaminayaan walaalkeen Mustafa Umar ayaa aad noo soo dhaweeyay Mustafa naftinkiisa iyo wasiirintiisa waxaan ugu soo dhaweeyay si aad iyo aad u qiimo badan marka abaal ayaan ka sheegnaa waan ku mahadsanyihiin kharlaas warkii qiimihiisa waa laga hadlay kulay waa maqasheen socodka inuu wuxuu ku xisaabsan yahay ugu horeyn waxaan mahad weyn u celinaynaa madaxweynaha gobolkan sidii iyo wasiirintiisa iyo talweynaha sida ay noo soo dhaweeyeen tan labaad socodka inuu wuxuu ku xisaabsan yahay waa ka warhaysiin sanadka 2019 markuu ahay waxa socod nooga imaaday wabarka war Cabdille iyo guurtidiisa la socdaan Kenya imaadeen si sharaf leh lagu soo dhaweeyay madaxtooyada wadanka waqtigeeda hogaaminaya madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo dadweynaha Kenya si wanaagsan ay ku soo dhaweeyeen waxa la sii bilad weyn oo wadanka Kenya qiimo weyn kale oo looga talagalay actually dadka dignitaries-ka waaweyn muddo ay ugu qaadatay tii marka maadaama laba wadan lagu kala nool yahay laakiin dad qaraabo liya yaan soo qaadnay in wabarka lagu wareejiyo anagoo marayna madaxweynaha Greenkan marka midaan leena waxa waa fahansantiin wadanka waxa ka jira wax la dhahaa xuduud baa jira laakiin xuduudkaas waa fikradu ku dhisan yahay Soomaalida halka degan kuwa halkaas degan xiriir weyn baa ka dhaxeeya wadaninimo iyo qaraabanimo marka mahad weyn baan celinaynaa waxaana filayaa socodkayna kii ugu dambeeyay ma noqon doono halka si bixiraan ku imaadi doonaa si dhaqan baan ku imaadi doonaa si dawladeed baan ku imaadi doonaa waana ku mahadsantiin alxamdulillah maanta aad iyo aad baan u faraxsanahay anigoo joogno magaalada Jigjiga waxaan u mahad celinayaa marka koowaad Allah subhanahu wa ta'ala waxa kale oo mahad celinaynaa dawladda deegaanka oo hogaaminayna walaalkeen Mustafa Umar si fiican ayuu noo soo dhaweeyay bulshada si fiican bay noo soo dhaweysay aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin saay walaalaheen xildhibaan ama gabanaga xildhibaanka ay u sheegeen maanta waxaan u imaadnay marti ku nahnay magaalada Jigjiga
ونص عنا بلد شرفكي أبهن أبوابر لسيي وكينيا لوسي نيروبي مدعوينه حوري وكينيا هورو كنياتا أيو كشرفي maadaama marka Nairobi joogo lagu wareejin waayay maanta anaga u imid inaan balad sharafkii aan dawladda deegaanka ku wareejino safa ababar asaga lagu wareejiyo balad sharafkana waa balad aad u qiimo badan dawladda Kenya mar hore waa madcilin haddana waa madcilinayna maxaa yeelay waa qiimo weyn bay nasiyeen anaga iyo deegaankaanba berito insha Allah xafladda waa dhici doontaa بل الشرف كن أوديك اللجوء رجية وحلوسي وحواي وأودي أو أمان كدالaya دكان كدالaya أساقنا وورنمدي سنة ما هن باش تجودي كلي وورنمده وباش عدول بصومالي ماشان هدقنا ذينا رجين كان صومالي هدقنا ذينا كينيا هدقنا ذينا ماشي الجوجامبا وورك صومالي إنكستو باش تجودي وكرشي مركانا الحمد لله أردنا سنة صعنا aad baan u faraxsanahay labada wadanna inaan isku xirno maxaa yeelay anagana xildhibaano iyo odayaal laga soo doortay anahay wadanka Kenya xiriirka labada dhinac inaan muujino waa muhiim waan ka bilaabnay culture-ka diplomacy-ga iyo wax walba aan kor u qaadno